Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waraysi gaar ah ku siinayay telefishinka Universal ayaa waxa uu ka hadlay xariga magaalada Hargeysa lagu xiray Boqor Cismaan Buur Madow waxaanu sheegay in xarigaasi uu isagu sabab iskugu noqday kadib markii uu boqorku hadal ku saabsan inuu ergey ka yahay madaxweynaha Soomaaliland uu ka jeediyay deegaanka Carmo oo ay ka socotay munaasabad lagu caleema saarayo beeldaaje cusub Suldaanka guud ayaa hadalkaasi uu ka jeediyay boqorku si weyn u dhaleelay isagoo ku sababeeyay xarigiisan Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa xukuumadda Soomaaliland geesta kale ku bogaadiyay xariga Boqor Cismaan Maxamuud Buur Madow hadaladiisina waxa kamid ahaa waxa lagu xidhaynaa waa afkiisa waxyaabaha aanu xil saareen oo cid u igman inuu sheegtay ninka Morgan uma sidaa gacanta iyo sacabka u lulaya waxa weeye beeshaasi wixii ka dhacay dambigeedii mar la isku haya idina afka kama qoriyeen xilaanu cid u igmanna hadaad iska saarto wayna tartiibteeda ku dartaa iyo nidaamkeeda oo arrinkaasi maxaa kala gudbay maxaad ka qaban kartaa maxaad ka oran kartaa hada istidhaahdo marka boqorku afkiisa ee la doonta xariga annagu lamaan doonan cidna xidhamaanu ka oran xukuumadduna dee wixii waajibkeedu yahay iyada qofka ka qaadasta sida waxaan leeyahay dalkeenu cadow badan buu leeyahay cadowguna wuu ku faraxsan yahay hadallada caynkaas marka lagu hadlo waxay ku kala qaybinayaan Soomaaliland laakiin warka cadowgu ka naxayo waa cadaaladda taalo wadanka madaxweynuhu ummadiisa ninku igmado iyo ninkaan igmanin dee warkoodu uu kala duwan yahay marka xariga Boqor Cismaan la xiray isaga lugiisa ku doontay waxaan leeyahay ragii goobtaa tagay taladay ku tageen uma midaysnayn ragna waa rag isa gurdan raaciya uun shirka ragna waa rag mabda u taga marka qofka Soomaaliland masilaya wuxuu ku masilaa magaciisa kaliya laakiin in xukuumadda ka eed sheegto oo ka been abuuro yiraahdo waxa ay soo igmaday madaxweynaha waa shay afka laga xishoodo وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal Hargeysa